maalintay taariikhdu ahayd 25 bishii shanaad 2015 markay saacaddu ku beegnay 3:27 oo subaxnimo diyaaradda ayaa la soo xiriirtay xafiiska maamulka diyaaradaha ee ku taala magaalada Marsilia. diyaaraddu waxay ahayd nooca Airbus ee 320 waxaana lahayd shirkadda German Wings. waxay ka soo baxday Barcelona oo ku taala dalka Spain waxayna u socotay magaalada Düsseldorf oo ku taala Jarmalka. wax walbana si dabiici ah ayay u socdeen markaasi. saacaddu markay ahayd 3:30 yacni markay 3 daqiiqo ka soo wareegatay markay diyaaradda duushay duuliyaha diyaaradda ayaa la soo xiriiray xafiiska maamulka diyaaradaha wuxuuna u sheegay xawaaraha iyo joogga ay diyaaraddu ku socoto. wax walbana si wanaagsan ayay u socdeen markaasi. laakiin daqiiqada kadib diyaaradda waxay ka soo hoos martay dhirirka yacni jooggii loogu talagalay inay ku duusho taasoo ahayd 38,000 fiit waxayse ku socotay markaasi dhirir la eg 6,000 fiit. 6 daqiiqo ugu horreysay xafiiska wuu awoodi waayey inuu la xiriiro diyaaraddaas. waxay isticmaaleen habab kala duwan sida inay kala xiriiraan diyaarad u dhow iyo inay kala xiriiraan sistamka difaaca hawada Faransiiska laakiin diyaaradda wax jawaab ah lagama helin. markay saacaddu ahayd 3:40 wuxuu xafiiska si buuxda u lumiyey la xiriirka diyaaraddaas waxayna gebi ahaanba ka qarsoontay diyaaraddaasi raadeerka. sida ugu dhaqsiyaha badan waxay direen fariin gargaar oo degdega si ay u badbaadiyaan duuliyaha iyo dhammaan rakaabka saarnaa diyaaraddaasi. 3:41 markay ahayd diyaaraddii Jarmalka waxay ku dhacday buuraha Alpes wayna burburtay dhammaanteed. maxay ahayd sababta diyaaraddan loo beegsaday maxaana ku dhacay oo sababay burburkeeda maanta ayaan ka sheekayn doonaa. magacaygu waa Yaasir Mukhtaar ku soo dhowaada janalkayga. maanta waxaan ka hadlaynaa sheekada afduubitaanka safarkii loo yaqaanay 9525 ee diyaaradda Jarmalka. diyaaradda waxay ku dhacday buur aad u dheer taasoo ku qasabtay hay-adda gargaarka degdegga ah inay ku imaadaan helikobtaro si ay u ogaadaan khasaaraha intuu la eg yahay. diyaaraddaasi si buuxda ayay u burburtay oo waxba kama harin laakiin waxa ay soo heleen khubaradu 2 qalabka codka lagu duuba ah kuwaasoo ku kala xirnaa qaybta duuliyaha iyo qaybta ay dadka ka saarnaayeen diyaaraddaasi. inkastoo uu aad u burbursanaa qalabkaasi haddana khubaradu waxay awood u yeesheen inay kala baxaan codadkii ku duubnaa qalabkaasi. sheekadu ma ahayn shil keliya ee waxay ahayd wax la sii qorsheeyey. diyaaraddu waxay ahayd mid la afduubtay. cidda afduubatay iyo sida ay wax u dhaceen ayaan hadda ogaanaynaa. kadib markay diyaaraddu duushay wax walba dabiici ayay ahaayeen waxayna diyaaraddu ku socotay jooggii loogu talagalay. duuliyaha diyaaradda ayaa aaday musqusha markay saacaddu ahayd 3:30 kadib intuu maqnaa waxaa la beddelay joogga ay diyaaraddu ku socotay. markuu duuliyaha u soo laabtay qolka duulimaadka waxaa laga furi waayey iridda qolka. isagoo bannaanka qolka taagan ayuu fahmay in ninkii diyaaradda la waday uu afduubtay diyaaraddan. dhibka jirayna wuxuu ahaa ma lahayn meel kale oo laga gala qolka diyaaradda laga kaxeeyo ilaa iriddaas mooye. iriddana ma ahayn mid la jebin karo. albaabkana wuxuu lahaa badhan la riixayo kadibna uu gambaleel u soo dhacayo qofka gudaha qolka ku jira si uu kuugu oggolaado inuu iriddaasi kaa furo. waxaana arrinkaasi loo sameeyey si loo ilaaliyo ammaanka duuliyaha iyo kuwa kale la shaqeeya. sidoo kale waxay leeyihiin nambar sireed uu qofka uu gelinayo marka uu rabo inuu qolkaasi galo. hadduu nambarkaasi isticmaalo iridda waxay isfuraysaa keliya 5 sekin kadibna way xirmaysaa. laakiin qofka gudaha ku jira ayaa ka xiri karo in nambaradaasi la isticmaalo waana siduu sameeyey ninka afduubtay diyaaraddaasi. saacaddu markay ahayd 3:39 qalabka codka duuba ayaa laga maqlay codad kuwaasoo ahaa iskudaya in iriddaasi la jebiyo laakiin aad ayuu u adkaa albaabka sidaasi awgeedna uma suurtagelin in albaabkaasi la jebiyo. 3:40 markay saacaddu ahayd dhammaan rakaabkii diyaaraddaasi saarnaa waxay ogaadeen inay dhiman doonaan. sidaas ayaana dhacday oo cidna kama aysan badbaadin shilkaasi. diyaaraddaasina waxaa saarnaa 144 rakaab 4 ka mida kuwa diyaaradda ka shaqeeya iyo duuliyaasha diyaaradda dhammaantoodana halkaasi ayay ku dhinteen. dadka rakaabka ahaa waxay iskugu jireen carruur iyo dad waaweyn. kabtan Patrick oo ahaa duuliyaha diyaaraddaasi waxay da'diisu ahayd 36 sano waxaana u joogtay 2 carruura wuxuuna ahaa duuliye aad u khibrad badan.
su'aasha taagan waxay tahay waa maxay sababta ku kaliftay inuu ninka duuliyaha la shaqeeyo uu sidaasi sameeyo ninkaas da'diisu waxay ahayd 27 sano aad ayuu u jeclaa duulimaadka markuu dugsiga sare dhameeyey waxa uu ku biiray kulliyadda duulimaadka oo lahayd shirkadda Lufthansa laakiin bilooyin kadib waxbarashadiisa wuu iska joojiyey wuxuuna ku sugnaa xaalad niyad jaba wuxuu isticmaalay daawooyin loo isticmaalo depressionka sidoo kale wuxuu booqan jiray dhaqaatiirta nafsiga ah kadib markuu daawooyin qaatay wuu ka caafimaaday xanuunkii depressionka deedna wuxuu isbitaalka ka soo qaatay warqad caddaynaysa caafimaadkiisa dhimirka kulliyadda ayaa dib ugu celisay ID kaarkiisa wuxuuna halkaasi ka sii watay tababarkiisa kulliyadda waxay go'aamisay inay ardayda u samayso tababar duulimaad ah laakiin marka ugu horraysa waa inay warqad codsi ay ka soo buuxiyaan qaybta duulimaadka ee federaalka ah codsigaasi wuxuu ku sheegay inuusan weligiisa soo marin xaalad nafsiya waana lagu ogaaday inuu been sheegayo haddii qaybta duulimaadka federaalka arday been ka sheego xogtiisa waxay ku xukumi jirtay xabsi iyo in dib dambe kulliyaddaasi uusan u baran laakiin fursad labaad ayay siisay wuxuuna u sheegay inuu soo maray xaalad niyad jaba kadibna waa loo oggolaaday inuu sii wata tababarkiisa sanadkii 2013 wuxuu ku biiray shirkadda duulimaadka ee Jarmalka oo lagu magacaabo German Wings laakiin isla waqtigaasi waxaa ku soo laabatay xaaladii niyad jabka ahayd mar walba wuxuu dhihi jiray waxaan dareemayaa inaan indhaha beeli rabo deedna wuxuu u tegay dhaqaatiir ku takhasusay indhaha laakiin waxba ma qabtid ayaa lagu yidhi waxayna kula taliyeen inuu booqdo dhakhtar nafsiya deedna wuxuu u laabtay dhakhtarkiisii hore wuxuuna ka soo qaatay daawooyinkii uu isticmaali jiray kadibna howshiisa ayuu sii watay 4 maalin ka hor intuusan shilka diyaaradda dhicin wuxuu kombiyuutarkiisa qaybta Google-ka ka baaray sida u shaqaysay iridda qolka duulimaadka ee diyaaradda Airbus ee 320 markuu ogaaday siday u shaqaysa ayuu isagana tijaabiyey markuu duuliyaha aaday musqusha sidaas ayayna diyaaraddii ku dhacday duuliyayaasha dhammaan waxay si sanadlaa u maraan baaritaano mid nafsiya iyo jir ahaanba laakiin badanaa dhaqaatiirta xoogga ma saari jirin xanuunnada maskaxeed dhibka jira ayaa ahaa in hadduu duuliyo u taga dhakhtar nafsiya uuna dhakhtarkaasi ogaaday in duuliyahan qabo cudur maskaxeed ma ogeysiin jirin qaybta duulimaadka uu ka shaqeeyo taasoo khatar badan ku keeni karta diyaaradda uu kaxeeyey iyo rakaabka saaranba markii la booqday dhaqaatiirta xaaladdiisa ka warhaysay waxay dhaheen annaga waan ogeyn inuu qabo xanuun maskaxa laakiin go'aanka sheegitaanka isagaan u daynay sidoo kale waxay dhaheen annaga ma ogaan karno qofka qaba dhibaatooyin nafsiyadeed oo yar ilaa uu heer dad naf dhaafiye ka gaarayo xeerka u degsanaa dalka Jarmalka waxaa mamnuuc ka ahaa in xogta bukaanada lala wadaago qof kale sidaas darteed dowladda Jarmalka waxay soo saartay xeer loogaga dhaqmaya dhammaan adduunka oo dhan xeerkaasoo ah in qolka duulimaadka ay ku dhex jiraan 3 qof yacni duuliyaha iyo 2 kale oo caawisa si markuu hal qof baxo ay 2 kale meesha ugu soo haraan suurtagalna ma noqonayso in 2 qof ay isla qabaan xanuuno maskaxeed ayna isla qorsheeyaan fikradahaasi waxa la yaab kale ayaa ah in Lufthansa oo ahayd shirkadda iskale kulliyadda duulimaadka ay diiday xeerkaasi shilkan kadib German Wings waxay magacooda u bedeleen Eurowings ugu dambayntii Lufthansa waxay qoysaska dadka ka dhintay ay siiyeen magdhow aad u weyn mana u malaynayo in lacaga kaliya ay ku filnaanayso khasaaraha soo gaaray qoysaskaas